application-keena yari ee backend-keena yar waan soo qaadan karnaa. So waxaan sameynayaa hadda kaba soo qaad functions-keygii baan haystaa egg utils utils baan haystaa. Haddaan doonayo inaan isticmaalo utiliska laazim waa inaan import gareeyaa iska liyaata import ES6 weeyaan. Goordhow baan ku bari doonaa insha Allah sida loo isticmaalo. Hadda CommonJS baan isticmaalanaa. Waxaan doonayaa inaan import gareeyo oo kaba soo qaad let's have a cons let's say welcome message baan odhanaa. Aan halkan haysanay welcome message. Okay, let's have welcome message MSG buu ahaa oo function-keena kalena muxuu ahaa current time. Say current time. Current time waan haystaa. Okay. Kan waa require baan leeyahay from a require baan leeyahay kaliyaata waxaan u baahanahay inaan ka require gareeyo hierarchical-ka egg level-ka uu folder-ku ku jira adeegaysaa macni way siman yihiin // baad odhanaysaa utils isaga automatically ku siinaya hadduu folder kale kusii jiro oo controllers oo kale baad arkaysaa express oo kale aad arkaysaa ama routes oo kale aad arkaysaa ama models oo kale aad samayn kartaa goordhow. So waxaad eegaysaa levelka faylashaadu sida hierarchical-ka u siman yihiin hadduu folder kusii guda jiro iyo hadday aad kor uga kacaso intaasoo folder uu kusii guda jiro mar walba waad arkaysaa. Saasoo kale aad require gareynaysaa oo install gareynaysaa markaad war walba import gareynayso ood soo qaadanayso functionskii faylal kale kuugu jiray inaad ku dhex isticmaasho. Imanka haddaan doonayo inaan halkan ku isticmaalo let's say waxaan soo qaadan karaa let's have a send message halkan aan send odhanayaa virus routeskeygaan soo qaadanaya waxaan odhan karaaba kaba soo qaad welcome message let's say Zahra waxaan soo qaadan karaa studentkii waa soo qaatay plus baan ku dari karaa plus halkan waxaan u dhaxaysiin karaa oo javascript-ga waxaad u diri kartaa html elementskii break baan u dirayaaba let's say close bracket baan odhanaya pr kadibna waxaad samayn kartaa let's say okay, pr kadibna break baan u dirayaa line baan u dhaxaysiinayaa plus waxaan odhan karaa current time buu ahaa current time kadibna function safe baan idhi hadda markaa iminka eeg aboutkii baan joogaa I think aboutkii home page-kaan tegaya okay, let's say home page-ka see hello Sahra welcome to Node.js saacadiina waa tan see saacadiina markiiba uu function-kaagii uu execute gareynaya so haddaad doonto middleware baad u samaysan kartaa routeskan haddaad doonayso inaanad helin ama errorkii middlewares wax la yidhaha waad ku dari kartaa sababtoo app-kaaga waad haysataa express waxaad doontaad samayn kartaa adaa ikhtiyaarka iskale oo iminka waxaad odhan kartaa app markaad middleware yar ku darayso oo doonayso function callback yar baad samaynaysaa halkanaad catch garaynaysaa waxaad doonto request response callback function-ka yar baad samaynanaa okay so rest status code-kan eeganaa let's say status code-ka 404 ba soo dir baan odhanayaa then marka aan waxaanan garanayn aan iska tago so let's say page not phone badhe not phone markaan haysto imanka haddaan iska tago let's say contact aan iska soo tago eg page not found buu ku yiri ani error yaroo middleware baan halkan ku daray app dot use kadibna eg waa handler kadibna wuxuu ku darayaa requestigaaga in whatever backend maxaa la yidhahdaa serverkaaga aad samaynayso ayuu catch garaynaya markaad waxaan unknown aad istiraahdo samee okay ama route aan jirin aad istiraahdo soo qabo ayuu ku daray imanka not phone buu kusoo okay page-kan lama garanayo buu yidhi عليك okay markaa saasaad ugu dari karaysaa gununa callback function iska yare middleware iska bal way isla eegi doonaa insha allah bal si yara ballaadhinanaa si aynu bal yara boss method iyo CRUD operation kan u samayno okay sababtoo ah CRUD operation baynu u baahannahay si aynu u barano inaan samayno oo waayo markaad doonayso http request inaad samayso waa inaad CRUD operation samayso get boss put delete waxaan oo dhan waa inaad samayso saa darteed bal waxaasaynu samaynanaa bal inaynu si yara ballaadhino adiguna mar walba eeg wixii ku saabsan crash course-yada waa fudud yihiin
yara arag, ku yara celcesho, haddaad doonayso more aad waxaan aad sii fahanto, mar walba research samee. AI-gana yara isticmaal si uu kuu caawiyo imaka. Luqad aanu kuugu sharaxayn ma jirto. More examples baynu sii wadanaa balse aan u sii fahanno.